Ma ogtahay Masaydu in ay yihiin qabiilka kaliya ee u aarsay libaaxa bal fiiri nimankan waxay cayrsanayaan ama ordiyaan in ay dilaan waa libaax ee ma ahan dawaco ama ugaar Masaydu waxay caan ku yihiin ugaarsiga libaaxyada waxayna dhaqdaan oo ay qiimeeyaan looda sidoo kale waxay cabaan dhiigeeda mana aasan meydkooda marka uu qof ka dhinto raggoodu waxay guursan karaan ilaa iyo 70 xaas dhaqamada la yaab kale ee ay leeyihiin qabiilka Masaydu waxa kamid ah marka uu wiilkoodu qaan gaaro in loo diro kaynta si uu u soo ugaarsado libaaxyada taasina waxa uu ka helayaa darajada dagaalyahan waxa uu dagaal adag la galaya libaaxa talaabadan ayaa sababta in badan oo kamid ah dhalinyarada qabiilka Masaydu ay ku waayaan naftooda laakiin waxa uu ku qasban yahay inuu keeno haragga libaaxa ama madaxiisa xitaa hadii uu naftiisa ku waayo si uu u helo darajada dagaalyahan qabiilka Masaydu waa qabiil reer guuraa ah waxaana lagu tiriyaa in ay kamid yihiin qabiilada Afrika ugu facaweyn waxayna qabiilkan ku nool yihiin bariga Afrika gaar ahaan Kenya, Tanzania iyo Uganda tirada qabiilkan ayaa dhan 1.2 milyan oo qof sidoo kale cuntadooda asaasiga ah qabiilkan ayaa hilibka caanaha iyo dhiigga xoolaha oo ay cabaan munaasabadaha u gaarka ah iyagoo aaminsan in dhiigga xoolaha ay ku jiraan borotiin aad u sareeysa waxa uu dhiigga xooluhu ugu jiraan qabiilka Masaydu booska sharaabka oo kale marka ay cunada cunayaan wax iskaga dajiyaan oo biyo ahaan u cabaan dhiigga xoolaha